15 calaamadood ee lagu garto ninka liita. Nimanka qiimahoodu hooseeyo dabeecad ahaan waa dulin. Qof walba ayaa ay mas'uul ka yihiin halka ay naftoodu ay ka dhigan tahay in ay qaataan wax ka badan inta ay ku siin karaan ama ay awoodaan in ay soo saaraan. Xasuusin markaan isticmaalno qiimaha xirfadda iyo sifooyinka wanaagsan ee qofku miiska soo saaro maahan qiimaha ay leeyihiin bini'aadanimadu. Marka ay timaado xirfad iyo sifooyin qofna ma eego ninka qiimaha hooseeya. Ragga qaarkii weligood ma noolaadaan kaliya waa kuwa dhintay xilli hore iyaga oo haddana nool ilaa ay aakhirkan dhintaan tii xaq ahayd ama dhabta ahayd. Muuqaalkan waxaa si cad u fahmi doontaa waxa uu yahay ninka liita. Ujeedada muuqaalkanina maaha ceebayn balse waa sheegid iyo istoosin si aan u hagaagno. Kusoo dhawaada muuqaalkeena oo aan maanta kaga warrami doono 15 calaamadood oo lagu garto ninka qiimaha hooseeya ama ninka liita. Salaam calaykum saaxiibayaal, soo dhawaada marka hore. Waxa uu ku jiraa dadka ka hooseeya 25% waxa soo galaya marka ay timaado madaxda bulshada. Ragga waxa lagu qiimeeyaa lacagta iyo heerkiisa nolosha maxaa yeelay waa sida ay bulshadu u cabirto saameynta hadba inta aad qiimo badan tahay ama aad tahay nin liita. Raggani badanka iyaga oo laga yaabo in ay yihiin 30 jiro waa kuwa ku tiirsan ha noqoto waalidiintood ama cid kale xag cunto, dhar, hooy iyo waxyaabaha asaasiga ah. Hooyadii ayaa laga yaabaa in ay u maydho dharka siisana lacag si uu ugu baxo. Waa dadka jecel in ay qaataan cayrta marka ay ku nool yihiin wadamada ama dhulalka qalaad halkii ay shaqaysan lahaayeen. Had iyo jeer waxayna raadiyaan lacag aanay u shaqaysan ama aanay u dhididin. Lacagtaasi kuma sii waarto marka ay helaan si fudud ayay uga baxdaa mana ku qarash gareeyaan wax nacfi weyn u leh, balse ciyaar ayay ku dhameeyaan. Ma jirto sharaf ku timaada inaad dadka xijiso oo aad shaxaad iyo baryo ula tagto mar walba, balse sharaftu waxay ku timaadaa in aad shaqaysato oo akhlaaq wanaagsan oo aan bini'aadamka gacanta hoos dhigan laga helo. Qof kasta waxa uu ixtiraamaa qofka shaqaysta, wax kastaba ha qabtee. U shaqee si adag, jeclow shaqadaada, iyada ayaa ku bari doonta qiimaha ay naftaada u leedahay iyo sida aad isugu filnaansho iyo tabcasho ku gaadhi lahayd. Waa nin aan caafimaad qabin oo daciif ah. Ragga liita waa kuwa jidh ahaan iyo maskax ahaanba daciif ah. Taasi shaqo kuma laha hidde-sidayaasha. Wax kasta oo la sameeyo dadaal ayaa lagu gaadhaa. Waxaad noqon kartaa ragga dunida ugu foolxun ama kuwa ugu quruxda badan, laakiin waa haddii aad ka shaqaysid labiskaaga iyo caafimaadkaaga, kuna dadaasho xirashadaada dhar nadiif ah, labiskaagana qurxiso. Markasta waxaa kor u kacaya qiimaha shakhsiyadaada. Caafimaadkaaga iyo jidhkaagu waa falcelinta qofka aad tahay. Cidna ma oga waxa gudahaaga ku jira, balse qof walba waxa uu arkayaa guudkaaga sare iyo hablabiskaaga ama xitaa xaaladaada caafimaad. Haddii uu gudahaagu wanaagsan yahay, dibadda ayaad ka xoogaysanaysaa. Si la mid ah marka geedka jifidiisu adag tahay, xagga sarena waa u ka adkaan. Ragga liita ma fahansana sida uu adduunku u shaqaynayo casrigan. In aad naftaada daryeesho waa shardiga ugu yar ee lagaaga baahan yahay haddii aad rabto inaad bulshada ka mid noqoto oo aad wax la qaybsato. Mana aha doorasho taasi, sababtoo ah goob walba waxaa looga baahan yahay qof naftiisa daryeela oo ka warqaba caafimaadkiisa, lamana jeclaysanayo oo la soo dhaweyn maayo qof liita. Dumarku waxay ragga ku qiimeeyaan markay arkaanba waa muuqaalka guud ee qaabka labiska iyo ninku qaabka uu u taagan yahay. Markaba waxa kala muuqanaya in ninkani uu yahay mid naftiisa daryeela iyo inuu yahay nin liita oo aan naftiisa hoos u eegin. Kuma aad dhalan in aad noqoto nin liita, laakiin waxay ku timid dayacnaantaada, caajisnimadaada iyo doorashadaada. Waxaad gudboonayaal ama waa gardaroolayaal. Dabeecadda xumi waxay ku faaftaa qaybaha nolosha oo dhan, waxaana ay yihiin kuwa shucuurtooda ku xadgudbay oo wax isdabamarin badan. Haddii ay arkaan qof iyaga ka daciifsan in ay jir ahaan ugu xadgudbaan ayaa dhacda ama ay jecel yihiin. Ragga qiimaha hooseeya waa nooca u malaynaya haddii anigu aan adiga ahaan lahaa qofna kuma heli karo, sababtoo ah waxay aad uga hooseeyaan jaranjarada bulsheed. Waxay ka quusteen in ay dareemaan nooc kasta oo awood ah. Labaduba waa quus iyo kalsooni la'aan. Noloshoodan ayaa daha ka qaadaysa ammaan darrada. Xidhiidhada waa ay jabiyaan ama ay ka baxaan aayar iyaga oo ku cano qarxa. Haddana waxay si qarsoodi ah uga baqayaan in qof kasti ka tago. Marka waxay diyaar u yihiin in ay ku hanjabaan in ay qofka rabshad jireed u geysanayaan. Taasina waa sababta ay ragga noocaasi badanka u qayliyaan. Mana jiro wax nuxur ah oo ku hoos laaban hinaasahooda. Waxay ka baqanayaan in qof kasta oo kale uu ogaado
iyaga waxa kicinaya ama ka caraysinaya waxa kicinaya hadda waa muuqaalkan aynu ku sharaxayno astaamahooda iyo dhaqamadooda xunxun ee ay leeyihiin ragga qiimaha hooseeya ee liita weligood iskuma dayaan in ay hagaajiyaan ama ay ishagaajiyaan haddii aadan ka bogsan waxa ku xumaynaya waxaad noqon doontaa dhiig ku daadanaya dadka aan ku jirin 4 uma noqdo caruurtiisa aabanimadu ma aha in caruur la dhalo dad badan ayaa sidaas u haysta in la noqdo ama lagu noqdo aabe balse kaasi aabe maaha aabihii waa xanaaneeye iyo koriye ubad ragga noocaanhi waa kuwa ugu liita waa kuwa caruurta ifka iska keena balse aan biilin xaaladoodana ogaan xitaa qaarkood ma garanayaan magaca ilmahaas loo bixiyey halka qaarkood aanaba arag sanado badan waxay dayacaan mas'uuliyaddii ilaahay saaray waxa laga yaabaa in qaar badan ay ilmaha yar ifka u keenaan si sharci daraa ama meher la'aan hadhowna qofta dumarka ah ay kaga baxsadaan laakiin iska indhatirka dhibtu marnaba kama saarto dhibta waxaa jira niman badan oo reero leh qoyskooda dhexdooda ka ah magacuyaal iyo in aanay gabadhaasi xaamilo u noqoto kaliya sanad walbana ay dhasho balse intaa wax dhaafsiisan aan ugu fadhiyin qoysaskaas qaarkood weligood food ma dhigin in ay kufaan mooye halka qaar khamriga iyo qaadka isku daldalayaan habeen iyo maalin waa nolol liidata iyo aadna u qiimo hooseysa haddii aad doonayso gabadh islaameed iyo guur xalaal ah mustaqbalna ka rabto waa inaad si buuxda diyaar ugu tahay isbeddel iyo qaadida mas'uuliyadda reerka iyo ubadka ragga qiimaha hooseeya maadaama aanay xitaa naftooda baahiyaadkeeda dabooli karin waa wax adag in laga sugo in ay daryeelaan ama ay qaadaan mas'uuliyadda qof kale ama mid reereed 5 ma leh maskax ku filan iyo qofnimo toona dadka noocani waa kuwa leh maskax taagan sida dhagaxana u adag haddii ay kuyugaagu ka hooseeyo 85 waxaad ku dhacaysaa 16% u hooseeya bulshada waxaa jira dad badan oo la dhaho ay kuyugoodu wuu hooseeyaa laakiin gaaray guulo nafeed iyo mid nololeedba balse waxaa isku fuuqsaday ragga qiimaha liita raggan oo ay adag tahay in ay diiradda saaraan xidhiidhada hagaajiyaan waana rag mar walba kadib dhacsan bulshada inteeda kale ragga liita waa shirkad xun waayo ma sameeyaan wax xiiso leh ama bulshada si caqliyeen uguma dhex jiri karaan ma furfurna xitaa in yaroo madadaala agtooda lagama helo had iyo goor waa ay dhiban yihiin qofnimadii iyo bulshaawinimadiina waa ka faaruq 6 waa caajisiin aan dhiiranayn oo dadka culays saara waxaad arkaysaa iyagoo oo aan samaynaynin wax qiimo leh oo ku sugan nolol aan caadi ahayn sababta ay nolosha ugu qanacsan yihiin kaliya waa in ay awoodin in ay iskood wax u qabsadaan ama u tabcadaan waxay rabaan wax yaroo si fudud lagu heli karo sida in ay amaah iska qaataan lacagtaasi oo ay rabaan in ay ku qayilaan ama ay sigaar ku cabaan ama ay si oo noloshooda khiyaaliga ah ugu galaan raggani waxay caan ku yihiin waqti luminta iyo dib u dhigidda wax kasta oo u yaala muddo sanada wax buuga ma akhriyin laakiin waxa uu daawaday 300 fiidyo oo muuqaalo iyo aflaan yacni ah ka kooban haddii ay helaan shaqo ama loo soo bandhigo waa kuwa caajisnimadooda iyo habsankooda badani uu shaqadaasi ka eriyo kama murugoonayaan isna weydiin maayaan wax khaldan ee halkaas unbay kasii wadayaan caajisnimadooda 7 waa kuwa malayeen nasiib xun yihiin oo aan nasasho qaadan karin waxaad maqashaa ama aad maqlaysaa sida ay u heli doonaan ama isku qanciyaan in ay tahay wax walba si fudud ayna u nasan doonaan sida iyaga oo milyaneer ah waxa uu galay sharad lacag ayaa uu ku lumiyey shirkad ayuu sheer la galay lacagtii ay soo amaahday iyana taas waa ay ku kacday lacag xun ayaa ku soo beegmatay ragga liita waxay isku haystaan in aanay nasiib lahayn waa kuwa mar walba wax daba socda laakiin aan weligood gaarin waxay mar walba ka sheekeeyeen waxa xiga ee ay qaban doonaan qorshahooda iyo tallaabada xigta ay qaadi doonaan haddana marna ma sameeyaan waxyaabahaas waa xarfaan hadal badan oo bilaa ficil ah raggan liita waxay isku haystaan in ay leeyihiin karti laakiin necab inay jabiyaan awoodooda nasiibku waa in uu ku helaa dadaal badan oo aad samaysay kadib marka aad si adag u shaqayso ayuu isaguna imanayaa nasiibku 8 waa kuwa xaasidiin ah oo aan daacad ahayn ragga qiimaha liita wax ka been sheegid badan ma jiraan saaxiibadooda ay dhabarka ka tooganayaan waxayna ku eegaan il xaasidnimo kuwa kale waxay u haystaan kuma dhiirigeliyaan iyo in ay hore u socdaan raggani waa xaasidiin ciil qabayaal ah dadka guulaystana aad u necab wax kasta waxay ka doorbidayaan xaasidnimo taasi oo qalbigooda iyo laabtooda buuxisay
waa kuwo ku faafiya nacaybka aad halka dadka wanaagsan ay iska indhatiraan. waxaad arkaysaa raggan liita oo aan la arki karin ama aan la ogaan karin xaaladooda dhabta ah aanay cidna ka warqabin, sababtoo ah qof kasta oo qiimo leh dad noocaas ah iskagama luminayo waqtigiisa ka warqabkooda. raggani waxay jecel yihiin inay qaataan ama ay lumiyaan waqtiga dadka kale si ay ugu adeegtaan ama danahooda gaarka ay ugu fushadaan, waxaana isku dayaan in ay dadka kale ka dhigaan kuwo la darajo ah, sababtoo ah ragga liita waxay doonayaan in ay dadka kale hoos u dhigaan ama ay iyagu ka sara maraan. 9 waxay ku wareegaan ama ay la socdaan ragga liita ee sidooda oo kale ah. kooxdan dhammaanteen haddii aad eegto waa kuwo isku mid ah, waa kuwo aan jiho lahayn, noloshoodana garanayn xag ay ka socoto iyo xag ay u socoto. si qof kasta uu ogaado kooxda uu yahay, ha eego 5 qof ee uu ku bixiyo waqtiga ugu badan, nooca ay yihiin iyo halka ay bulshada kaga jiraan. dadka la socda dad aan qiimo lahayn, tani waa dabin weyn oo lagu dhaco nolosha. ragga liitana waa ay ku silsiladeeyaan dadka kale. habkan aad isku wada midka tihiin qofna ma dareemaya khalkhal, waayo isku darajo ayaa tihiin. ninka liita marnaba kuma dabi karo heerkiisa liita, waayo marka aad u sheegto yoololkaaga iyo xaqiiqda ah in aad wax badan ka rabto nolosha, iyana waxay kuu sheegayaan in aanay waxyaabahaasi suurtagal ahayn oo ay adag tahay inaad samayso. malaha isku xirnaan oo waxa ay isku dayayaan in ay ku soo jiidaan, sabab kasta oo ay kugu haysan karayaanna waa ay samaynayaan. haddii aad isdhahdo isbeddel samee oo tallaabo hore u qaad, waxay ku dadaalayaan in ay dib kuu soo celiyaan halka qiimahoodii ay kaala mid dhigayaan. raggani waa kuwo la halgamaya noocyada kala duwan ee balwadda. marka aad isdhahdo iska jooji ama iska dhaaf, waxa ay ku siin doonaan balwadda iyada oo bilaash ah. waxyaabahaas taasoo ay kaaga ilaalinayaan in aad ka dhex baxdo. sida keliya ee aad uga dhex bixi kartaana waa in aad goysaa silsiladahaas oo aad ka guurto agtooda iyo agagaarkooda. 10 weligii ma maalgashado naftiisa. raggan liitaa waxay ku guuldareysteen in ay maalgashadaan naftooda kana shaqeeyaan waxyaabaha qiimahooda kor u qaadaya, sida waxbarashadooda, tababaradooda, xirfadahooda iyo caafimaadkooda, mana maalgeliyaan hagaajinta iyo qurxinta muuqaalkooda. ma maalgashadaan cilaaqaadka dadka kala dhexeeya. lacag kasta oo haystaana waa ay kharash karayaan. waa sababta aad u arkayso iyagoo ku nool xoogaa mushahar ah si ay isaga bixiyaan deymaha badan ee ay qaateen. ragga qiimaha liita waxay aad uga caajisaysan yihiin in ay naftooda maalgashadaan, dadaal badanna la yimaadaan. 11 waxay ku dhagaan halkii ay wax ka bilaabeen. ragga liita waa kuwo aan wax horumar ah samayn 10 sano ka hor halkii aad kaga tagtay ay weli taagayiin. waxa uu ku dhashay magaalo yar, isla tii ayuu ku dhimanayaa isagoo aan nolosha wax ka qabsan, dadkana wax ka tarin, dhaxalna uga tegin. haddii uu shaqo yar ka shaqaynaya 10 sano ka hor, isla shaqadii yareed unbuu weli hayaa. wax horumar ah ma samayn, keliya daadii unbaa u kordhay. laga yaabo inuu intaas xabsiga soo laacay, isla markiiba uu dib ugu laabtay halkiisii. raggan inta badan waa kuwo ku mashquula filimada maafiyada ama qabatimo daawashada filimaanta xunxun, iyaga oo ku hoos balweynaya. ninka qiimihiisu waxa uu ku xiran yahay awoodda uu u leeyahay in uu masiirkiisa ka taliyo. haddii aad 5 sano weli la tacaalayso dhibkii, ciladu waa adiga. 12 cid kale ayay ku eedeeyaan wax walba, iyagoo dhaha iyaga ayaa ka dambeeya. raggan liita waa ay ka xanaaqi doonaan haddii aadan naftaada u horin dantooda. waxay aaminsan yihiin in dunidu u baahan tahay in iyaga u adeegto. waxaa shakhsiyad sida sunta u halis badan. waxaanu ka cabanayaa in uusan heli karin dad uu sidaas ka dhigo. dadkani waa kuwa ugu badan ee samaystaa koomo fayga oo ay dadka ugu kacayaan ama ay ka aflagaadeeyaan, iyagoo aan u bareeri karin fikirkoodana si toosa u cabiri karin. waxay doonaanna waxay ka sheegaan dadkaas. waa rag ka howlgala maskaxda dhibanaha. 13 waxay doortaan in ay xaqiiqada ka baxsadaan. si ay uga baxsadaan xaqiiqada iyo runta dhabta ah, waa kuwa isticmaala maandooriyaasha iyo waxyaabaha lagu sirqaamo. waxay ku fakadaan ama ay u fakadaan adduunyo khiyaali ah iyo mala awaal ku dhisan. waxayna saacado iyo waqtiyo badan ku qaataan ciyaaridda geemiska, iyagoo iska dhigaya nin awood leh. haddii aanu ahayn ninkaasi nin waxaas ciyaara, waxau iska dhigayaa in uu dib u socodsiiyo asxaabtiisa si uu waqtigooda uga lumiyo. waxay mar walba ku warwareegaan oo ay iska indhasaabaan xaqiiqda, iyaga oo cudurdaaro iyo beeno fara badan sheegaya. waxay iska dayaan in ay boqolaal hadal kugu ilowsiiyaan jawaab yar aad uga baahnayd, waxaana ay ku dadaaleen in ay waqtiga lumiyaan mar walba. raggani inta badan waxay ku fog yihiin ka cararka xaqiiqada iyo in ay ku jiraan khiyaalka oo aad u jecel yihiin, waxaana si fudud u burburiyaan mustaqbalkooda. 14 adduunkay ka caroodaan.
ragga liita waxay adduunka ku abuuraan qalalaase halka ragga qiimaha sarena ay ku abuuraan nidaam iyo kala dambeyn. Waxay ka cadhoodaan in dahab qodayaashu aanay iyaga ahayn, sidoo kalena aanay qabin gabadha quruxda badan, iyagoo aaminsan nin weyn oo iyaga oo kale ah mooye in aanu nin kale u qalmin waxyaabahaas sare. Laakiin waxaan ku leeyahay matiid ee fadlan ka kax hurdada iyo khayaalka aad ku jirtid. Waxa ay ka noqdaan dadka taajiriinta ah. Maxaa ay taajir u noqdeen ayay is weydiiyaan oo ay u guulaysteen, laakiin marnaba ma noqon karaan waxa aad neceb tahay. Waxay ka cadhoodaan dadka waayeelka inay ku noolaadaan nolol fudud. Waxay ka xanaaqaan in ay soo mareen carruurnimadii dhaawacyo badan, laakiin doorashooyinka ay sameynayaan marnaba xaqiiqada ma joojiyaan. Raggani waxay u baahan yihiin inay naftooda badbaadiyaan halka ay qodayaan god dheer oo ay ku halaagayaan naftooda. 15 maaha nin raga. Raganimadu maaha kaliya inaad lab tahay, gar leedahay, abuurkii raggana u samaysan tahay, balse raganimadu taas way ka duwan tahay. Laab kasta oo jirana maaha mid raganimo leh. Laga soo bilaabo waagii hore ilaa hadda, howlaha raggu waxay ka ahaayeen awoodda ilaalinta, awoodda kartida, korinta ubadka, awoodda xoogga bulshada, waxtarka iyo ku biirinta bulshada wax wanaagsan. Ragga qiimaha sare leh waxay qabtaan dhamooyin shaqooyinkan sare ku soo sheegnay, sababtoo ah kala saraynta bulshadu waxay ku xidhan tahay isbarbardhigga shakhsiyaadka. Koox sare iyo kuwa hooseeya waxa lagu kala saari karaa waa waxqabadka iyo kaalinta ay bulshada kaga jiraan. Haddii aad dhammaan dhegaysatay qodobadan, waxaan kaa rabaa inaad aadna ku darsato calaamad kale oo lagu garto ragga qiimaha liita. Ahaw rag iyo dumarkaa doonto, qodobka aad ku darsanayso doodaadu waa inuu macquul noqdaa, sidoo kale bulshadana anfacaya. Sida kaliya aad uga baxsan karto ama aad u noqon karto nin qiimo liita, muuqaal kale ayaan si fiican uga sharxi doonaa. Laakiin waa inaad qaadataa مسؤولية noloshaada, waa inaad cudurdaaro iyo beeno isku dhaafsiisan xaqiiqada noloshaada hortaala, waana inaad la timaado go'aano adag oo aad ku wajahaysa xaqiiqada. Haddii aad tahay nin been badan, waxaaba tahay qof liita, ee fadlan isdaba qabatay oo wajah runta, waayo runtu dadka ma dishay way ka naxisaa. Halkii aad been ku sasabi lahayd naftaada iyo kuwa bini aadamkaba. mid kale aan kuu sheegay saaxiib bedel saaxiibada, waqtigana ha iskaga lumin dadka ka heer hooseeya, waayo wax horumar ah agtooda kuma sameynaysid. La jaanqaad ama la soco dadka ka sareeya. akhriska buugta ku dadaal, siiba kuwa wax soo saarkaaga iyo horumarka naftaada kugu dhiirinaya, wax badanna kaa caawinaya, iyagoo ku siinaya tusaalooyin iyo khibradooyin noloshaada si aad uga mara dhaliso dadaalka aad nolosha ugu jirto. saaxiibayaal, muuqaalkeena intaas ku soo gabagabayn doonaa tan iyo muuqaalka xiga. like saara muuqaalka. mahadsanidin. salaamu calaykum.